isku ognahay oo intaan kursiga haya aan qabanaya adiguna igula xisaabtan saddex baynu isku ognahay sarreyn aan sinji ku dhisnayn qalin aan qabiil ku dhisnayn iyo cadaalad aan ciil lahayn salaamu maalin maalimaha ka mid ah October horaanteedii ayaa waxaan booqday website-ka Somali Jobs ka bacdi waxaan ku arkay shaqooyin ku saabsan hay'adda shaqada iyo shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka bacdi shaqooyin ayaa codsaday muddo dhowr maalmood ka bacdi way la soo xiriireen waxayna ii sheegeen inaan imtixaan u fadhiisto waxaan u fadhiistay imtixaankii sida aad ku arki doontaan documentary-ga imtixaankii markaan fadhiistay waa ku guuleystay waxaan soo gaaray wajigii labaad oo interview ama waraysi way aragnimada shaqada aad u leedahay wajigii labaadna waan ku guuleystay waxay soo gaadhay wajigii saddexaad oo ah in la baafiyo ama la shaaciyo dadkii shaqada ku guuleystay dadana shantii xubnood oo shaqada ku guuleysto kamid ahaa 187 qof ayaa la soo shaaciyay waxaa lagu soo shaaciyay TV-ga qaranka sida aad ku maqlaysaan dadka uu ku dhawaaqayo wariyuhu xubnaha ku guuleystay mashruucan inay ka shaqeeyaan dib u habeynta shaqaalaha ayaa waxa ay kala yihiin Cabdi Aadan Diiriye Cabdi Casiis Cawil Ismaaciil Cabdi Salaan Muuse Guuleed Rooble Maxamed Saxardiid iyo Mustafa Cabdiraxmaan Habane shirkii jaraa'ida oo qabtay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Sharmaarke ka bacdi sidoo kale waxa laga soo daayay idaacadda ka bacdi waxa lagu soo qoray jariirad la yiraahdo warsugan jariiradda saad ku arki doontaa sawirkeeda iyo magaceeda ku jiro shantii qof oo ku guuleystay markii intaasoo dhan aan arkay kumanaan qof oo adduunyada daafaheeda ku nool ee dalka dhexdiisa ay soo hambeliyeen ayaan tagay xaruntii ka bacdi waxaan kala kulmay in booskaygii ama magacaygii qof kale lagu bedelay afartii xubnood kalena aan la taaban innaga arsaaqada laynama farno ilaahay baa qof walba damaanad qaaday laakiin cadaaladda iyo nidaamka ilaalintoodu ilaahay nafaray intii ibn aadan ku aadanayay intii nidaam ku aadana waan u qabanay ilaahay subhanahu wa ta'ala intii aqoonta ku guuleysatay way noo xulay intaasaanu dib u sii xirfadeen doonaa inuu sii aqoomeyn doonaa isla markaana say nooga caawiyaan horumarinta iyo tayeenta shaqaalaha dawladda si aynu u helno shaqaale in siiya adeega aynu mudannahay maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhiya waa maalin quluubta dadka aynu soo noolaynayno oo aynu ku noolaynayno in dalkani oo cadaalad yahay ilaahay faasiqnimada qofka aakhiru kula sugaayo kaga jaraa laakiin daalimnimada adduunku kaga jaraa qof ahaan iyo dawlad ahaanba dooni mayno in dulmi lagu wada socdo dooni mayno in shaqada lagu kala helo wax aan ku salaysnayn qalinka iyo xirfadda iyo aqoonta qofka nidaamkaasaan u guntanahay markii aan su'aalay gudoomiyaha hay'adda shaqada iyo shaqaalaha kooda waa maxay sababtu anigoo shaqadan ku guuleystay la shaaciyay in haddana qof kale lagu bedelo waxay iigu jawaabay hadallo aanu mas'uul ku jawaabi karin hadalladaasoo ah oo sidoo u dhigay ahayd inayna beeshiisba ku jirin waxaan isku haysay waxaan dadka soo baxay beele kale yihiin wuxuu kale ii sheegay inaanu shaqo ku lahayn inaanu ay aragnimo u lahayn bedelka maxamed mixile boqor wuxuu ku fadhiyaa inuu maxamed xaashi inankii xogeynta u ahaa awla 10 milyan oo maamul isaguna waa mas'uulkii loo doortay ka bacdi maskaxdayda waxaan isweydiiyay waxaan idhi hadduu dab axmoodo xagee laga dabiibi hadduu burbur haraado dalkee laga waraabin haddii dawa bukooto xagee laga dabiibi nacamtii qofkii ugu sarreeyay shaqadii shaqaalaha haystay ayaaba ka dacwoonaysaay ayaad u dacwoon deetana waxaan markaa noqotay inaan iska aamuso oo aan iska samro hase ahaatee muddo imka ay ka soo wareegeen 4 cisho ayuu barnaamij u soo daayay uu bixiyay barnaamijka waxqabadka hay'adda shaqaalaha kaasoo weli hadda uu ku soo bandhigay sawiradeedii markaan interview galayay markaan imtixaanka u fadhiyay si uu dadka ugu muujiyo ninka la yiraahdo Mustafa Cabdiraxmaan Habane inuu shaqaale yahay oo weli uu weel bank u shaqeeyo oo aan booskiisii cid lagu bedelin taasi ayaan anuguna ka damqaday oo igu kaliftay inaan
barnaamijkan ka qayb qaato oo aan dadka u sheego sidoo kale inaan dadka u sheego xaqiiqda dhabta ee jirta waayo waxaan u bixiyey ama aan ku dhawaaqay hadalkayga oon jeclaaday inaan kusoo gabagabeeyo xaqiiqda maran ama beenta iyo xogta dhabta ah xogta dhabtina walaal waa waxaan aan nihayay ka mid yihiin fiidiyoga dokumentiga warqadahaasi waa xogtii dhabteed xaqiiqda beentana waa waxa uu sharmaarka ku celcelinayay ee uu leeyahay maaragtay cadaalad baan sameeyey waa bishaaro waa barkad waa cadaalad iyo gugii cadaaladda iyadoo hoostiisiina markii la ogyahay ay sidaa tahay marka ummadda ayaan ugu talagalay inay runta ogaadaan iyo xaqiiqda thanks waa bishaaro waa barkad waa cadaalad iyo gugii cadaaladda saddex fariimood baynu isku ognahay oo intaan kursiga haya aan qabanaya adiguna igula xisaabtan saddex baynu isku ognahay sarrayn aan sinji ku dhisnayn qalin aan qabiil ku dhisnayn iyo cadaalad aan ciil lahayn salaamu calaykum